bismillaah kusoo dhawaada casharka taxanaha ah ee koorsada dhagaysiga. Sida caadada noo ahayd waxaan ku hormaraynaa xalinta layliga homework. Mar kale dhagayso muuqaalka. I'ma be okay. I'ma be okay. I'ma be okay. Wuxuu dhahay I'ma be okay. I'ma be okay. Okay, waxaan sharxaynaa pronunciation-ka. Wuxuu dhahay I'ma be si fiican u dhagayso. I'ma be okay. 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 Ereygan muxuu yahay oo ah I''MMA. Xuu ka yimid? Aan faahfaahino ereyga. Okay, waxaa loogu dhawaaqayaa ama waxay ka timid I am going to. Hadda ka hor waxaan soo sheegnay I am going to in si kale loo soo gaabin karo oo ah I'm gonna. Sidoo kale casharkaani waxaan kaloo dhihi karnaa I am going to. Waxaa la soo gaabin karaa ama. Intaad dhihi lahayd I am going to waxaad dhihi kartaa ama or I'm gonna ama I'm gonna. Balse maanta casharkaani waxaa ku qaadanaynaa ama. Badanaa ereygaani American accent-iyo way isticmaalaan. Ha ahaado qof position kasta ama xil walba ha haayo meel caadi ah ka shaqaynayo ama meel oo professional ama meel kasta waa looga isticmaalaa. Waxaad arki doontaa muuqaal oo dad kala duwan xambaarsan oo ku dhawaaqayo kelmaddan isticmaalayo oo jumlado kala duwan ah. Bal aan dhageysano. I don't know if I'm going to be living at that point, right? So, because I'm going to tell you what. But I'm going to be as honest about this whole thing. I'm going to start over. I'm a flip. I'm a flip, my friends. I'm a flip. I'm going to get tough. I'm going to motivate myself. Waxaan u gudbaynaa sharaxaada assignment-iga xiga. Mar kale daawo muuqaalka. You should have known better. You should have known better. You should have known better. Wuxuu dhahay You should have known better. You should have known better. Jumlada asalkeeda waxay ahayd You should have known better. Inuu dhaho. So should have waxaa ku dhacay contraction. Waxaana loo soo gaabiyey should have. Waxaa kaloo loo soo gaabin karaa shoulda. Laakiin muuqaalka la soo dhaafay waxaa ku cadeed inuu dhahayay You should have known better. 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 Wuxuuna adeegsaday should have. Laakiin native speakerska waxay ku hadlaan si oo relax ah qaab ee wax kasto ku fududaysanayaan ama qaab soo gaabin ku jirto. So mararka qaar intay dhihi lahaayeen should have waxay dhahayaan shoulda. Tusaale You should have known better. Waxay kale dhihi karaan You should have known better. You should have known better. Sidoo kale tusaale haddaan ka bixino. I went left when I should have gone right, and here I am. Holed up in what should have been a hotel, except it was a bank. Now I realize I should have been more specific.